سجود deegaankeena fursadaha ka jiray hadda dadkeenu ay u eg tahay inay u soo jeesteen waa fursadaha beeraha dhul badan oo beeraha ku habboon ayaa ka jira deegaankeena laakiin maanan ka faa'iideysanin sidii loogu talagalay marka waxaan hadda xoogga saarnay in aan si guud bulshadeena uga faa'iideyno fursadaha ka jira deegaanka taa oo rumahan aan isku daynay bal caqabadaha ka jira maxay yihiin fursadaha jirina maxay yihiin sidoo kale wadadaan aragnay inaan ka faa'iideysanina qaabkay noqonayaan nuqul aad u weyn oo diyaarinay oo 5 sano ah oo isku dayayno inaan sanad kasta siyaabo kala duwan qorshaha intaan ka duulno in bulshada ay aan uga faa'iideyno sadarteed sanadkan 2017 waxay noo qorshaysan dhulka badan 1 milyan oo hektaar inaan beerno wax soo saar ka badan 30 milyan oo kintaarna inaan ka helno ayaan qorsheynay marka waxaad arkaysaa qorshaha guud waxyaabaha aanu ka duulayno in sanadba sanadkii kolba waxay nagu soo kordhayaan hadda imika qamadiga degmada Tuliye degmada Awbarre kali waxaad arkaysaa ilaa 220,000 hektaar in maaragtay laga beeray wax soo saar aad muhiim ah laga heli doono waliba hektaarka inta wax laga helayo aad buu muhiim u yahay oo waa inaan kor u qaadno marka hadda waxaad arkaysaa maadaama dhulkeenu uu maaragtay waxyaabihii loogu talagalay oo dhan uu ka jiro inta badanna aan u baahnayn gashi kala duwan wax soo saarka hektaarku aad buu u fiican yahay marka inaan kor u sii qaadno mustaqbalka xoogan saarayna waxyaabaha kamid ah si cusub hadda u bilaabayno waxaa kamid ah bariiska oo ilaa 7 degmo hadda aan ka bilownay oo qorshihii guud ee maaragtay aan ku sheegay qamadiga kamid ah oo ilaa 220,000 hektaar aan gaarsiinay bariiska ilaa 20,000 baan isku ku tali jirnaa labada sano soo socota inaan gaarsiino waxyaabaha kale ee ugu muhiimsan waxa weeye hadda imka deef weeye beertan hadda dhex joogno hadda ka hor waxa inta badan la sheegaa waliba aagan waqtigii Xayl Silaasi inay dadku beereen jireen ay garanayeen laakiin imika waqti dhow lama xasuusanayo baahi badan way ka jirtaa marka 20 hektaar ee tijaabada ee deefka waxaad arkaysaa inuu si fiican u baxay sidoo kalena wax soo saarka guud ee dalka marka la eego 20 ilaa 25 kintaal weeye hektaarkii laakiin hadda waxaan ka rajaynaynaa 25 ilaa 30 inuu hektaarkii ka soo baxo kintaal saadarteed waxay ku tusaysaa fursado fiican inay ka jirto deegaankeena hadda qorshayaal waxaa jira in dadka aan ku jahaynayno xukuumad ahaanna caqabadaha ka jira aanu ka caawinayno si wada jirana xukuumadda iyo dadka maaragtay beeraleyda ama maalqabeen ha noqdo ama beeraley caadi ha noqdo saddex arrimood oo ugu waaweyn ayaa inta badan dib ka jirta kow waa aqoontii oo jirin run ahaan inta badanna ay dhib inaga hayso meelo badan dad badan oo tababartay ayaa jira laakiin culays badan baa ka jira laba wax soo saarka sidii loo baahnaa kama soo baxo marka si yar oo iska caadi ayaan u dhaqanaa taa laftigeegu xagga wax soo saarka kor u qaadida wax badan ayaa ka jira arinta saddexaadna xagga joogteynta inaan joogteyno oon markasta maaragtay dabagal ku samayno taa laftigeegu dhibaatooyin kala duwan baa ka jira marka waxyaabaha in laga saxo dad khibrad leh oo aqoon leh inay yimaadaan xukuumadduna ay ka caawiso beeraleyda saa darteedna wax soo saarka aanu kor ugu qaadno mustaqbalkana dad wax bartay iyo dhalinyarada waliba ku takhasusay beeraha inaan awoodooda fulneed kor u qaadno ayaan isku dayaynaa marka si guud fursadda ka jirta deegaankeena beeraha waliba
waxaan hadda imika booqanayno beerahan booqanayno waa beero ku soo baxay roobka xagga maaragtay waraabka laftigeegu fursad aad u muhiim ayaa ka jira marka inaan mustaqbalka deegaankeena damaanaqaadka cuntada aan xaqiijino waxaa loo baahan yahay in sidii loo baahnaa looga faa'iidaysto marka saa darteed xukuumad ahaan waxaan diyaar u nahay caqabadaha ka jira inaanu ka caawino bulshadeena qaybaheega kala duwanna waxaan ku dhiirigelinayaa fursaddan ka jirta deegaankeena in ay ka qayb qaataan beertaadu waxay ku siinayso bahdaada kuma siinayso marka saa darteed waxaad arkaysaa daraasadyada la sameeyey waxaa ugu muhiimsan inta badan faa'iido laga helo waxaa ugu horeeya waa beer weeye marka saa darteed inay beeraha ka qayb qaataan ay bulshadooda iyo maaragtay ayagu iyo si guud badal ahaan ay wax badan maaragtay ku soo kordhiyaan